الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخواني في الله، أحبكم في الله. walaalahayga aan aad iyo aad ku jeclahay, caawa waxaan rabaa in aan ka hadlo wax yar qisadii nabiyullaahi nuux calayhi salaam iyo sida ay qarnigiisii ku bilaabatay ka hijrashada diinta laga hijroodo ee asnaamta la caabudo, sida ay ku bilaabatay. nabiyullaahi nuux calayhi salaam markii la soo saarayo waxa uu jiray oo nebinimada loogu soo saarayo 480 sano. qoomkiisana waxa uu diinta ugu yeerayay oo maxallahay xagga alla ugu yeerayay waa 950 sano. markii uu doontii sameeyey asigii intii oo ilaahay rumaysay oo ilaahay ku badbaadiyeyna waxa uu noolaaday kadib 350 sano kadibna waa uu geeriyooday nabiyullaahi nuux calayhi salaam. marka waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar sidee qowmkiisa ay ku bilaabeen in ay asnaamta caabudaan. abuna aadam markii oo la soo dejiyey duriyadiisii oo dhan diinta islaamka sax ay u haysatay ilaa 10 qarni laga gaaro. markii 10 qarni la gaaray oo dad culummo ah oo waaweyn ay dadka jeclaayeen ay geeriyoodeen markaasoo duug oo nin wadaad oo culummo la duugayo ayaa waxaa kasoo qayb galay shaydaan ibliis calayhi lacna aa kasoo qayb gale asigoo oo suuradda rajul oo binaadam iskusoo ekeysiyey, nin suuraddiis iskusoo ekeysiyey. kadib wuxuu ku dhahay marka waana culimmadoodii ay aad iyo aad ku jeclaayeen, waa sida huud, sawaac, yaquud wa yacuuqa wa nasra. markaasoo wuxuu ku dhahay ibliis calayhi lacna, ma rabtiin miya, ma jecliin miya inaad aragtiin ood xasuusatiin suurada ayagoo kalea, oo markii aad aragtiin oo aad xasuusatiin si ay cibaadada ay niigu zaa'idiyaan aw saxsa haa wallahi ninkaan nin wanaagsan u ahay, ninkaan nin shiiq u ahay, maasha allah. si aad usoo xasuusatiin, haddii aad xasuusatiinna aad u badisiin cibaadada sida ayagoo kale aad u naqatiin. jiilka aabbayaashaas marka uu ibliis saas ou dhahayo oo waxay dhaha way yeeleen maxaa ma ka qabnay, way fiican tahay oon dhiirigelin aan ka helno. wuxuu usoo sameeyey suurado kala duwan oo cadadadana usoo sameeyey. kadib marka aabbahoo kale jidka u maraayo cunugiisoo kale oo gacanta ka haya, markaas wuxuu leha wallahi ninkaan nin wanaagsan ah. markuu oo sanamka arko wallahi ninkaan nin wanaagsan oo ahay, nin habeenkii o dhan salaatuleel u taagan, maalintii oo dhan sooman, sadaqa badan baxsana, nin maasha allah u ahay. marka jiilkan yarar ninkan looga sheekeynayo ma arkin, ayaga qalbigooda aada ugu weynaaday. waa la jooga haddana mar waxaa la arkaa marmar shimbira oo kala sanamka aad ku kor xaarayo, aabihi u taga uu ka tirtira. maxaa uga tirtira adiga? waxaan waa sanam ewel marka hore caabudaad kaama ahayn, maxaa u weyneyn oo cadamada aad inaad nadiifisid aw gaarsiine. meeshaasay ka bilaabatay marka in ay leexdaan qoomkii nabiyullaahi nuux calayhi salaam. kadib jiilkii aabbihi oo kale markuu dhinto, haddana markii ibliis calayhi lacna wuxuu ku dhahay ma jecliin miya inaan nii sameeyo haddana suurado. marka si kow marka u imaanaya wuxuu ku dhahay wa ana rajulun bannaa, macnaha aniga waxaa nin wax sameeyo oo sancada yaqaano, waxyaabo sameeyo yaqaano. haddana wuxuu dhahay ma jecliin miya in aad guryihiina dhigatiin si aad haddii aad aragtiin haddana sidaas oo kale ay nii xasuusiyaan cibaadada niigu fududaato. qaaluu bala, waxay dhaheen maxaa diidaya, waa fiican tahay. adiga jiilba jiil ka dambeeye jiilkii hore markii uu aabihii uu masaxayay, jiilkii dambe waxay bilaabeen inay dhar iyo u labisaan. jiilkii kasii dambeeyena waxayba aamineenba haddii ayna masixin ama ay shumac ku agshidin inuu cirkaba roob kasoo da-aynin.
ama haddii ay naagta waxba aan dhalin ay taabato salaaxdo uur yeelanayso. sidii ay marka ku leexdeen qoomkii nabiyullaahi nuux calayhi assalaam. insha allahu tacaala qisada meesheeday kasii socon doontaa. waxaan rabaa inaan soo kokoobo si aad adinkana uga faa'iidaysataan, anigana aan nafteeda uga faa'iideeyo, adinkana aan nii faa'iideeyo. walaalihii aan jeclaha tihiin, ikhwaanii fillaah, uxibukum fillaah, ilaahay dartiisaan idin jeclahay. ere aan nii sheegayo oon danka leh inaad wax igu sheegtiin ama aad igu amaanintiin aan u baahanaha male, ilaa ajri cala allah. marka aada iyo aada umahadsan tihiin walaalahayga aan jeclahay. insha allahu tacaala salaada ha lagu dadaalo. assalaa. waxaan arkay dad badan oo ku dhahayo waqti mu ahayo salaada. walaal qaali, ilaahay ku unta ka cabso. salaada waa tiirka ugu horeeya islaamka, shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah, wa bacdeen iqaama asalaa. salaada insha allah. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.